بسم الله الرحمن الرحيم. wiil aan dhalay oo noqday dhakhtarka ilkaha ayaa mar anagoo sheekaysanana wuxuu u yidhi aabba wax walbo waajib ah oo waalidnimo idiin saarnaa inta aan qurbaha joognay si wanaagsan ayaad uga soo baxdeen, laakiin waxaad aad uga gaabiseen inaad afka soomaaliga ama afkeena hooyo aad si fiican noo bartaan. wuxuu kaloo igu yidhi aabba waa ayaan daro in afkeena hooyo naloo tarjumo markii aan waddanka ku naqano, macnaa haddii aan furto meel ilkaha lagu daaweeyo waa ayaan daro in afkeyga hooyo la ii tarjumo. markii hadalkiisa aan maqlay waxaa isla markiiba igu soo dhacay heestii abwaan cali sugulo ee ahayd af qalaad aqoontu miya. runtii dhibaatadan ma aha mid ku eg keliya mujtamaca soomaaliyeed, mujtamac badan oo adduunyada ka mid ah dowlado badan ayay saamaysay. sidoo kalena ceeb ma aha yacni in lagu hadlo luqad ajnabi ah ama la barto. tusaale ahaan waxaa jirtay nebigeena allahuma salli wasalam caleyh wuxuu amray zayd ibnu thaabit oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo fahamkiisu aad u dheeraa inuu barto luqadda yahuudda. wuxuuna yidhi waxaan rabaa qoraalladoodii inaan fahmo, yacni sidaas darteed ayuu isla markiiba luqaddii bartay. nebigeena allahuma salli wasalam caleyh ku kaalmeeyey. xitaa daraasado ama cilmi baaris la sameeyey ayaa waxay soo saartay in qofka markuu afkiisa hooyo uu ku xeel dheer yahay waa ka hal abuur badan yahay qofka kale oo aan afkiisa hooyo ku xeel dheereen, waa ka wax soo saar badan yahay. sidoo kalena luqadaha kale waa u sahlaysaa inuu barto, maxaa yeelay luqadda afka hooyo ayaa wuxuu u noqonayaa tiir u sahlaysa inuu luqadaha kale ku barto. runtii afka hooyo waa astaantii ummadeed iyo kooladii isku haysay mujtamaca. afka hooyo wuxuu dhowraa dhaqanka iyo dhacdooyinka abka ab laga soo dhaxlay. haddii afka hooyo uu dabargo'o waxaa dabargo'aya hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed. haddii hiddaha iyo dhaqankii uu dabargo'ona qofkii soomaaliyeed wuxuu noqonayaa qof sida geed aan xidid lahayn oo kale oo caleemihiisa marba meel iska duulaya. marka taasna waa ayaan daro. marka tusaalooyin badan ayaa jira marka aad fiiriso sababaha ugu waaweyn ee siyaasiyiinta soomaaliyeed ee diyaasbarada ka timid ay u hanan waayeen quluubta shacabka soomaaliyeed ayaa waxaa ka mid ah ayagoo laga dareemayo quursi iyo ku qanacsanaan la'aan luqadda iyo hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed. hadalkooda waxaa mar walba ay ku daraan erayo qalaad ayadoon qof aan ku khasbin. taasna shacabka soomaaliyeed ma jeclo. sidoo kalena marka aad fiiriso dastuurkeena naloo keenay waxa uu noogu cuntami waayey sababaha ugu waaweyn waxay ka mid tahay waxaa naloo keenay dastuur af ingiriisi ah oo loo tarjumay af soomaali. sidaas darteed ayuu ugu cuntami waayey shacabka soomaaliyeed ay u baahatay in dib u eegis lagu sameeyo dastuurkaas oo in la soomaaliyeeyo laguna beego hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed. marka si kastaba ha ahaatee waxaa lagama maarmaan ah inaan korino afkeena hooyo, gaar ahaana dhallinyarada soomaaliyeed iyo jiilka cusub ee soo koraya. soomaalidu waxay tidhaahdaa lama huraan waa cawskii jilaal. afka hooyo waa lama huraan, ilaahaa noo gartay, waa aayaadka ilaahay in qof walba uu siiyo luqad gooni ah. waa inaan ilaashanaa luqaddeenna. runtii waan awoodnaa inaan ka hortagno dabargo'a ama ku yimaada ama nabadguur ku yimaada afka soomaaliyeed. taasna waxay u baahan tahay dadaal wadareed oo loo wada dhan yahay. dowladda keliya laguma dayn karo, yacni waa inay iskaashadaan ganacsatada, aqoon-yahanada, culamaa'udiinka iyo dhallinyarada iyo kartida haweenka soomaaliyeed oo qayb weyn ay ka qaataan. haddii aan ka hadalno sida looga hortegi karo, midda koowaad waalidiinta soomaaliyeed ee qurbaha jooga inay carruurtooda guriga afka soomaaliga la hadlaan, jeclaysiiyaanna hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed oo ayna quursan afka soomaaliga. xitaa waalidiinta soomaaliyeed ee guursaday lamaane ajnabi ah yacni waa awoodaan in labada luqadood ay carruurtii bartaan. tusaalooyin badan ayaa jiro oo lamaane oo laba waddan kala yimid oo yacni labada luqoodba ku hadlaan. carruurta intay yar yihiin luqadda waa u sahlan tahay, waa fitro ilaahay uu ku abuuray, yacni labada luqoodba waa baran karaan. tan labaad, xalka labaad waxay tahay in dib loo soo nooleeyo xaruntii dhexe ee kobcinta afka soomaaliga ee jirtay dagaalada ka hor. xaruntaasoo xilkeedii ahayd magacu bixinta wax walba oo adduunyada ku soo kordho iyo daryeelka ama korinta afka soomaaliga. xaruntaas waxay lahayd guddi gaar ah oo isugu jira aqoon-yahano, suugaanley iyo dad khibrad u leh luqadda. yacni waxaa lama huraan ah inay maalgeliyaan xaruntan
ganacsatada maadaama ay dowladda dhaqaalaheeda aad u liidato dhalinyaradana si iskaa wax u qabso ah ay ugu taageeraan guddigan. يعني tusaalooyin badan ayaa jira guddiyo sidaan oo kale oo guul gaaray. waxaa jirtay guddi loo xil saaray inay soo nooleeyaan dabargo' ku dhacay afka yahuudda Hebruuga loo yaqaan oo 1500 sano aan la adeegsan oo dabargo' nabad guur ku dhacay. laakiin guddigaas waxay ku guuleysteen inay luqadii yahuudda oo Hebruuga ay soo nooleeyaan oo maanta nolol maalmeedkii lagu adeegsado. marka xarumahan oo kale waa muhiim insha Allah taala. sidoo kale in jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ka jiro diasporada inay sameeyaan barnaamijyo lagu barayo dhalinyarada ama lagu dhiirigelinayo afka Soomaaliga qoraalkiisa iyo akhrintiisa iyo runtiina degmooyinka qaarkood ee reer galbeedka ah waxay u qondeeyeen maalgelin gooni ah oo ah horumarinta mujtamaca aqaliyadda ah hidaha iyo dhaqankoodii. marka waxaa dhici karta hadday arji u qortaan inay maalgelin ay ka helaan xitaa degmooyinkaas oo reer galbeedka ah kuwa khaasatan dhaqaalahoodii oo aad u fiican yahay. ugu dambeyntii warbaahinta waa indhaha dadka ay wax ku arkaan qayb weynna ayay ka qaataan inay horumariyaan mashaariicda arrimaha bulshada sida afka Soomaaliga. laakiin waxa ayaan dara ah warbaahinta Soomaaliyeed ayaamahan waxay aad ugu badatay dhinaca warxumatashiilka dhinaca horumarinta aad ay ugu gaabiyeen horumarinta arrimaha bulshada. marka warbaahinta waa inay xil iska saaraan siday u horumarin lahaayeen ama dib u soo celinta afka hooye. xataa suxufiyiinta waa inay ku hadlaan afka Soomaaliga oo mar badan waxaa arkaysaa suxufiyiin badan oo afka khalaad ku khasaya afka Soomaaliga ama dadkii la wareysanayo oo aqoon-yahaniinta ah oo af Soomaaliga iyo af Ingiriisiga iyo isku khaskhasaya. marka waxaa fiican in warbaahinta xoog weyn ay saaraan dib u soo nooleynta afka Soomaaliyeed hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysateen. waa barnaamijkii horumar ummadaada oo idin soo gudbiyey Baazi Xaaji Busuri. waxaa kaloo isku soo dubiriday walaalkeen Axmed Amiin Xasan. daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij taxane ah. fadlan isdiiwaangeliya dhinaca YouTube-ka iyo Facebook-gana follow up ku sameeya. waxaan rajaynaynaa in barnaamijyo tadeer leh oo lagu horumarinayo arrimaha bulshada Soomaaliyeed inaan idin soo gudbino hadduu Ilaahay yiraahdo. jazaakumullahu khayran. Ilaahay ha nagu anfaco.